بسم الله الرحمن الرحيم دعوة الكوسو دواء برامج كاره ومانتو إنه قمرتي هي سلاد وسياسي سلاد على الجل أو كم ده سياسيين روح عضاجة فالسياسي كوسو دو تلفزيون SBC حرونتي سمجالات مقدشو. بسم الله الرحمن الرحيم آدي آدان ودوهي رنتي مركة أوه الرئيس وطبعا الرئيس جارة إلي لتين إني تهانج على مركة إن شاء الله إلهي دونه صورة قليل مركة والحمد لله وفرصة في عن آدي أدنى وايدين سيفي عن سياسي دام السياسي روح عضاء تحي أما كترسنا بارلمان كيس ديدات بل سؤال شو رئيسي أن تودينا يوحد تحي ما دام السياسة الدلكة أتكور هيسي سيدي بيكولا موقتا سياسة الدلكة هاتن الكجر marka ugu horeysa anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runtii maalintii noogu dhaweeday oo daraadaheed waxaad ogtihiin dad qiimo badan oo ay ka mid yihiin saraakiil sarsare oo ciidamada iyo wariyaheeni iyo adiga staff muhiim ah oo telefishinka qaranka telefishinka universal oo Caawil Daahir Salaad oo hormuud u ahaa iyo idoo gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo ciidamadiisii asagana ma taqaana ay meesha wax ku gaareen tuul asagana dhaawac fudud Allah u yasiro intii dhimata waxaan leeyahay Allah oo ilaahay jannadaha ka waraabiyo intii dhaawacantana Allah bogsiyo caafimaad degdeg Allah siiyo وانا عمباري هينا آدي آد ايانا متغانا فلالكاس قرعانو argagixisada wadaan leenahay mataqaana niyad jab shacabka Soomaaliyeed uma keeni doonaan waana iyagaana ka shalaay doona insha Allah taala markaan su'aashaada u soo naqdo runtii waad ogtahay dawladda Soomaaliya halkaan waxay timiday 2007 horaanteedii ama 2016 aakhirkeedii 2007 halkaan caasimadda soo degtay ilaa maalintaasna ma taqaanaa waxaa jiray horumaro ama dawlado isbedelayay marka siyaasadda dalka waxaan u arkaa maanta inay meel fiican marayso marka anoo ka eegayo qodobada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo lagu guda jiro dastuurka qaranka oo la dhameystirayo sharciga doorashooyinka oo meel fiican maraya asigana oo la gebengebeynayo idoo la isku soo hadal qaaday khayraadkii awood qaybsigii khayraadka waxyaabihii tiirarkii ugu muhiimsanay iyo arrimaha amniga intaasaa la dhihi karaa qaranka Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan oo Soomaaliya ay hadda diiradda saarayso ama ay ku howlantahay dawladda Soomaaliya marka waxaan isleeyahay waa markii ugu horeysay oo marka arrimaha masiiriga ahaa la taabanayo dadka Soomaaliyeedna ay fursad heli doonaan ay codkooda ku dhiibtaan marka aniga saasaan u arkaa siyaasadda Soomaaliya inay jihadaas haysato dawladana ay ku howlan tahay haddii arrimahaas lagu guuleystana hadda Soomaaliya cagaheeray ku istaagi mudana waxaa jiro qabsi runtii horta iska qabsigaasi oo Soomaaliya ay ka dhigata caado u aheeday dawladani awal waxay ahaa jirtay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa isqabsan jira waad ogtahay mar walba marka xukuumaddaas dhici jirtay mid kale la magacaabi jiray maanta waxaad moodaa arintaas in laga bogsaday sida uu madaxweynuhu uu ballan qaadana uu ka dhabiyay hase ahaatee baarlamaanka Soomaaliya mooshinkiisii mar walba waa sii watayo waxay inuu ka waantoobo ayay mataqaanaa dadka Soomaaliyeed jeclaayeen laakiin maadaama ay xaqna u leeyihiin oo ay dastuurka ku taalo iyaga hadda
mooshinkii ay keeneen waa tii xilka looga qaaday waa tii mataqaanaa caqabad oo ku keenay Jawaari inuu meesha ka baxo guddoomiyihii hore haddana adiga guddigoodii maaliyadda ha ahaato arrimaha kaleetood haddana waa tii ay madaxweynaha mooshin ka keeneen oo ay yidhaahdeen haddana mooshinaan keennay kiina wuxuu noqday mid oo fashilmay uu noqday ugu dambayntiina wuu buray oo waxaad ogtahay in xildhibaanna ay yidhaahdeen annaga waa nala ka been abuuray tii marka waxay keentay in uu guddoomiyihii warqad soo saaro oo uu yidhaahdo shuruudihii laga raba muusan buuxin iidana hadda waa laga kabsan doonaa marka waxaan isleeyahay waa fiicneed inaan mar walba ayna waxyaabahan soo naqan laakiin hadda sidii ugu rooneeday ayay dowladdan u maaraysay maxaa yeelay xukuumaddu hadday dhacdo ayaa ugu dhibaato badan xukuumaddiina 2 sano ayay jirsatay waxaana moodaa inay mataqaanaa ay hadda ay weli hawsheedii sii wadato marka runtii iska qabsigaasi nasiib darro waaye laakiin sidii ugu dhibka yareed ayaa loo maareeyaan dhihi karaa waana midka aan isdhihi karo dowladihii horey uga roontaa dowladdan aad iyo aad waa gartay bal dhanka dhaqaalaha waxaa la sheegay in dhaqaalaha isbeddel lagu sameeyey waxyaabo fara badan la qabtay bal ku muuqataa in dhaqaalihii isbeddel lagu sameeyey gaar ahaan wasaaradda maaliyadda isbeddel ku sameysay dhanka dhaqaalaha hadda taasi waa igu muuqataa maxaa yeelay dowladdani waxa ay ku faanto ay number 1 ka tahay waxyaabaha laga garan karo aan hadda lagu beenay karin oo mar walba aad rajada Soomaaliya maanta u bidhaantana inay beesha caalamka gaar ahaan hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka inay mataqaanaa ay yiraahdeen wada shaqayn fiican aan la leenahay dowladda Soomaaliyana mustaqbalka in deenkii laga dhaafo ayay ku sii socotaa taas runtii wasiirka maaliyadda oo isaguna la qaybsada mar walba dadweynaha warbixin 3 bilood warbixin siiya taasoo markaasi uu la wadaago ganacsatada iyo shacabka canshuurta bixiya runtii hadee taasi waa maragma doonta waana rajada kaliya oo nin diblomaasi ah wuxuu igu yiri maalin haddii wasiirka maaliyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha saddexdoodaas haddii ay taagnaadaan oo aadan idinku mataqaanaa iska bedelina mustaqbalka waxaad mataqaanaa heli doontaan in deynti laydinka cafiyo kadibna aad heshiin deyn balaayiin amba malaayiin laydin amaahiyo haddii laydinka dhaafo ileen dalku mar haddii deynta meeshii laga cafiyo oo uu noqdo xaladhalay oo noqdo markaasi amaahow qaada kariya waxbaa la deynsa amaahna waa qaada kariya waana la deymi karaahoo dadku xataa way maalgasho karaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo dalkan hadda rajadu ka jirto meelahaasaa ka mida aad iyo aadna mataqaanaa hadda waxaad ka garan kartaa shaqaalaha dowladda u shaqeeya iyo ciidamada intaba mushaarkooday qaataan marka waxaa muuqata inay marka credit waxa loo yaqaano ama kalsooni ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dowladda oo qofkii hadda shaqo ka hela oo aad iyo aad loo danaynayo waagii horena waa ogtahay waa laga cabsanayo inaad shaqaale ka naqato waxba dhibaato ii keenin dheef ka filamaaye ayay ku bilaabay marka saas aad ka garan kartaa siyaasi sida la socoto amniga magaalada Muqdisho waxa la sheegay in gacan bira lagu dhigay iyadoo taasi wali aysan suurtoobin oo magaalada Muqdisho ay ka dhacaan falal amniga dib ku ah bal maxaad leedahay in amnigu waa lagu xaqiijin karaa
niga weli sidii la rabay uma socdaan maxaa yeelay waxaad ogtaa argagixisadu waxay rabtaa inay mashquuliso si ayna dawladdu ayna horumar u gaarin markaasi waad garan kartaa magaaladan caasimadda cadawo badan ay leedahay argagixisadaa kow u ah hase ahaatee cadow qarsoon iyo mid muuqda intaba meelo kala duwan oo ilaa 5 la gaarsii karo ayaa mataqaanaa magaaladan inay cagaheeda ay magaalo madaxnimadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii soo naqato ayaa aad iyo aad welwel uga qaba waana guul Soomaali u soo hoyatay haddii caasimaddu ay amnigeeda ku guuleysato shacabka Soomaaliyeed soo wada degaya shacabka Soomaaliyeed waa garan kartaa madaxa hadduu ku fayow yahay maskaxdaadu waa shaqeeyay laakiin mar haddaad madaxa ka jirantaa dhibaataa ku haysan runtii aad iyo aad ayay nasiib darro u tahay in weli falalka argagixisada ay ka socdaan magaalada ay ka dhacayaan taas oo aan aniga isleeyahay arrintaasi wax weynaa laga qaban karaa laakiin way aragnimo yaro waa jirtaa haan isleeyahay dadka ammaanka ka shaqeeya gaar ahaan qaybo kamida marka runtii dawladdu waad aragtay xasilintii ciidamadii mar walba waa ku dayeysay fikrada cusub ay keenaysay ilaa haddana ay wadaa waxaan isleeyahay marka dadka amniga loo dhiibana waa ku cusbaayeen waxaan isleeyahay marka haddii ay ku dayeen oo ay waaye aragnimadii 2 sano ay qaateen waxaan isleeyahay sanadkan 2019 in arrintaas mataqaanaa ay noqon doonto mid tilaabo muhiimna laga qaaday lagana adkaa doono argagixisaduna inay caasimadda timaado oo ay howl ka qabato waxay isleedahay yaan lagaaga soo duulin marka meeshaanay iska mashquuline cadowgana wuxuu u baahan yahay in goobtiisa loogu tago si uu khidadaha uu soo maleegayo ay meesha uga baxaan marka waxaan u rajeeyaa xukuumaddu marka inay arrintaas mataqaanaa aad iyo aad ay dhiisha guntiga isaga dhigto oo ay arrintaas mataqaanaa ay ka mira keento waa ugu baaqaa waana arrinta ugu muhiimsan oo dalka Soomaaliya maanta mataqaanaa ay ugu baahida badan marka waxaan isleeyahay runtii sidii la rabo ummad ma ahan laakiin in laga mira keeni doono ayay igu muuqataa 2019 kana arrintaas amniga wax weyn laga qaban doono si markaas dadka Soomaaliyeed ay codkooda u dhiibtaan waa waajib qaran oo dawladdan looga fadhiyo aad iyo aad saas arrinta koonfur galbeed dii aynu fiirino koonfur galbeed dhawaan waxaa ku soo gabagaboobay doorashadii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynahan la doortay bal midaas sidee bay kula muuqataa doorashada ka dhacday koonfur galbeed runtii hadda koonfur galbeed waxaad ogtahay teeramkeedii Shariif Xasan waa dhamaystay marka 4 sano kale oo cusub ayaa u bilaabanaysay marka doorashadii markii la gudagala marka waxaad ogtahay Mukhtaar Roogo Sheekh Mukhtaar Roogo oo mar dhow soo galay oo aad ogeeda inay khilaaf oo kala dhashay asiga iyo kooxdiisi mataqaanaa al-shabaab ama argagixisadii waa si muddo badan oo ku jiriyay si gaar ah oo isu difaacayay ugu dambeyntiina dawladda Soomaaliya markii waatii ay soo badbaadisay asaguna uu ku soo biiray arrintaas marka runtii hoos uma ogi waxyaabaha marka markii uu soo galay annaga waxaan u arkaynay inuu isaguna uu nasadooyo isla markaasna mataqaanaa dawladda iyo asiga wax ay markaas isku og yihiin oo ku howlgeli doono
arrimihii marka waa tii uu is-sharaxay arrintaasna wasaaradda amniga waa tii ay ka soo qortay warqad ay tiri marka macluumaadkii iyo wixii aan ku ballannay ama howlihii aan isku afgarannay weli ma aynan dhammaan inuu is-sharaxana wakhtigeedii lama gaarin saas warqad ahay qortay isigana mataqaanaa runtii taageero ayuu meesha hadda u taga si fiicanaa loo soo dhoweeyey arrintaas marka dowladda hadday ka biyo diiday nasiib darray aheeda marka sida inay isfahmaan oo ay markii la wada hadlo arrinkaas meel wax la wada dhigo ayay aheeda mayna noqon waatii mukhtaar la soo xiray kadib adiga doorashadii guddigii doorashadii uu sii wadiyo 19 waatii uu ku soo baxay madaxweynaha cusub oo koonfur galbeed lafta gareen runtii arrintaasi waxaa resultaatada laga fiiriyaa dhib kasta oo dhaca marka waxaan isleeyahay waa laga soo kabaa mar haddii madax cusub la doortay arrimahaasna dib waxyaabaha jira waa la xalli doonaa marka waxaan isleeyahay guul ayay tahay marka in isbeddel dhaco oo madaxweyne cusub uu yimaado oo koonfur galbeed ay teeram lamaad gasho oo ay waaye aragnimadeeda qaadato waxaan u arkaa marka aniga inay tahay si kastaba waxa u dhacaanee guul u soo hoyatay koonfur galbeed madaxweynaha cusubna waa u hambalyayhaynaa runtii aad iyo aadaana mataqaanaa aan u soo dhoweeyaynaa inuu shaqadiisa ilaahay ku guuleeyo waxyaabihii jirana uu xalli doonaan rajayahayna siyaasiyiinta qaar waxay sheegeen in la fakreen dowladda federaalka Soomaaliya ay soo doortay aysan dooranin xildhibaanada koonfur midaasi taas lama dhihi kara dowladda waxaa la dhihi karaa way danayhaysay inuu soo baxo waa la dhihi karaa laakiin waxaad ogtahay xildhibaanada koonfur galbeed shariif xasan ayaa soo xulay teeramkii shariif xasan xildhibaanadii uu soo diyaariye waaye waxaa la dhihi kari lahay marka dowladdan haddii ay xildhibaanada soo xusho oo iyada ay xildhibaano ay soo diyaarisa ay yihiin oo markaas xildhibaano iyadu xilliga teeramkeera soo baxa ay yihiin iyagaa diyaariyey iyagaana mataqaanaa lafta gareen in ay soo doortaan suurtogeliyaa la dhihi lahaa laakiin hadda lama dhihi kara maxaa yeele waa xildhibaano ka horreeyey iyagaana codeeyey waad garan kartaa haddee marka codka la rida xildhibaan hore u joogaa codeeyo reer koonfur galbeeda waana xildhibaanadii ay iyagu markii hore ay soo xusheen marka taasi isma buuxinayso laakiin waxaa la dhihi karaa dowladdu waa danayhaysay lafta gareen inuu soo baxo taasaa la dhihi karaa runtii waanana muddo badanaa lagu celceliyo taas marka hadda waadna garan kartaa mar haddii madax ay jirato bini aadanka dhammaan waxay u samaysan yihiin inay markaas ay wax daneeyaan marka dowladda dhexe cid la shaqeey karta oo markaas ay waad aragta dowladda walaadiyada waxaa ka yimid caqabado badan caqabadahaas marka si loogu gudbo waa loo baahan yahay dad isla jaan qaadi kara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka inay markaas isla qayb ay isla shaqeeyaan oo wada shaqeyn buuxda yeelaashaan waxay u roontaa dalka maxaa yeelay konfliktiga ama iska hor imaadka ayaa wuxuu yahay mid caqabad ku ageedi socodka nabadda Soomaaliya marka haddii madaxweyne koonfur galbeed joogo iyo dowladda dhexe isku fiican yihiin horumarna waa tegaa meesha wada shaqeyna waa yeelee markaasna waxaa u fududaanaya madaxweynaha waxyaabaha gobolkiisa ama dowladdiisa u baahan tahay dowlad goboleedkiisa inuu ka dhamaysto dowladda dhexe si mashaariic ay u gaarto marka saasaan islaahay inay labada dhinacba u fiican tahay
runtii waxyaabaha aan hore uga sii dhawaajiyey dalkan sidiisaba waa ugu baahan yahay gudaha iyo dibadda in mataqaanaa dibaddana xiriir wanaagsan lala yeesho dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa deriska waad ogta hadda inay wada shaqayn fiican leeyihiin geeska afrika dowladda wadamada deriska ahna ay wada shaqayn leeyihiin faragelintiina ay maanta soo yaraatay arrimaha gudahana waxyaabaha ugu muhiimsan kow waa amniga waa mid aan hadda ka hadlaye waa arrimaha dhaqaalaha waa dastuurka waa caasimadda maqaamkeedii oo la xaqiijiyo iyo shuruucda maanta doorashada qof iyo codkeeda dowladdan marka hadday intaas ku guulaysato runtii waxaa la dhihi karaa Soomaaliya 4 sano iyadu ay joogto kama qasaarin waana arrin Soomaaliya ay u aayayso arrimahaas masiiriga ah waxaa kaloo iyaduna aan meesha ka maqnayn in ay wada hadalkii Somaliland midnimada sidii ay mataqaanaa u taabageli lahayd iyadana arrimaha dib u heshiisiinta amba midnimada ku aadanna runtii waxaan rajaynaynaa iyadana waa socotaa sida aan ka warhayo arrintaasna muhiim waaye marka aniga waxaan isleeyahay qaybta ugu aan isleeyahay hadda dhaliisho waa ka jirtaa waa arrimaha amniga iyadana waxaan rajaynaynaa 2019 inay arrintaasi waaye aragnimadii ay 2 sano kasbatay inay ku wajihi doonto argagixisadana goobahooda loogu tegi doono meelaha bu'aale iyo adiga degmooyinka argagixisada gacantooda ku jira in laga faramaroojiyo inay waajib ku tahay dowladda taasna waxaan ugu baaqaa inay dowladdu ay laba laabto arrintaas oo ay si gaara oo xil gaara ay arrintaas iska saarto marka hadda intaas hadday qabato 4 sano waxaan dhihi karaa markaas Soomaaliya markaasi horumarkeedii iyo dhismaheedii iyo dib u dhiskeedii ayay 4 sano kale si rasmi ah u bilaabay waxayna noqon doontaa meel barwaaqa wadan la maal gashado oo caalamku oo mataqaanaa oo isugu yimaado hadda waxaadna ogtahay sharcigii in la meel mariyo mataqaanaa maalgashiga marka waxay noqon doontaa marka Soomaaliya meel la maal gashado caalamkana lagu soo dhaweeyo gacmo furan markaasna waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed dhul hodom ay leeyihiin waxay leeyihiin bad iyo biri oo wax soo saar leh oo beeray leeyihiin oo waxaad ogtahay webiyaala mara waa dal hodona xoolo nool ay leeyihiin kalluumay marka waxaan isleeyahay Soomaalidu si fudud ayay u dhergi doontaa maanta meeshay ka baahan tahay birito ida ayaa loo soo shaqo tagi doonaa waxay noqon doontaa mid marka batrooniya oo ida si fudud lacag ku hesho maadaama Ilaahay dalkan qaniga siiyay aad iyo aad aan rajadaas u qabnaa waxaase kow ka ah in amniga awood gaar la siiyo dowladana mar labaad iyo mar saddexaad aan ugu baaqaa inay arrintaasi ay si gaar ah isaga xil saarto deen u laabano Puntland waxa la filayaa dhawaan in ay doorasho ka dhacdo bish soo socota ee January maxaa laga filan karaa suurtagal lama tahay wixii koonfur galbeed ka dhacay soo wax u eg inay ka dhacaan Puntland sanka warhayo waa ayay soo tagtay marka madaxweynihii waxaan isleeyahay afaraad waxaa soo mara Cabdullaahi Yuusuf waxaa soo maray Muuse waxaa soo maray beerankii kale Cabdiraxmaan Faroole iyo Gaas kii shanaad way aragnimadaas idoo ka faa'iideysanaysa waad aragtay markaad dhageysanayso inay ka taagan tahay dimuqraadiyad oo hadal oo
furan yahay sanadkan hase ahaatee musharaxiintu waa badan tahay oo waxaad aragtay tirada isu soo taagtay inay Puntland wax ka qabato oo ay xilkaas u tartamto waa tiro aad u tiro badan oo weliba mataqaanaa haddana dadkii ugu muhiimsanaayo waxaa la isdhihi karaa oo reer Puntland waa miiskay iskeen marka waxaan isleeyahay 8 bisha Janaayo ayay waqtigii u egyahay gaas marka waxaan isleeyahay bisha 30keeda amba 31keeda in la dhaari doono baarlamaankeeda kadibna mataqaanaa ay doorashadii ay 8 ay tabteedii u dhici doonto saasaan uga warhayaa oo waqti kororsi iyo midna uusan jirin marka waxaan isleeyahay Puntland marka hoggaankeeda dadka horta waxaa ka muuqata inay isbeddel ay rabaan waa ka muuqataa maxaa yeelay inta isi soo shaqeeya iyo inta shacabku sida ay u soo dhaweynayaan waa dad raba in isbeddel uu dhaco markaan eegay hase ahaatee madaxweyne gaas maadaama uu asaguna tartankii uu soo galay xaqna uu leeyahay tartankaas marka ciddi ku soo baxday doortaan baarlamaankaas waa kooban yahay baarlamaanka waad ogtahay 66 inuu yahay jecelahay waa baarlamaan kooban oo markaas mataqaanaa u fudud inay tartamayaashu ay mataqaanaa ay loobinkooda si fudud u gaarsiiyaan waxaan isleeyahay marka si nabada ayay doorashadaas ku dhammaan doontaa rajo fiicanna waa ka qabnaa inay qaylo la'aan ay dhammaato doorashadan maadaama ay waaye arag yihiin ay si nabada arrinkaas ay u cod bixi doonaan kala wareeguna uu noqon doono mid abshira oo dimuqraadiya oo markaas Puntland ay noqoto meel lagu daydo dawlad goboleedyada kale ay ku daydaan markii horeba iyada ayaa u aheeday mataqaanaa markii Somaliland laga reebo iyada ayaa waxay u aheeday hormuud marka waxaan rajaynayaa arrintaas sida aan uga warhayo si wanaagsan oo nabad ku jirto inay ku dhammaan doonto xilka mataqaanaa ku soo bixi doona madaxweyne la doorto si nabadan oo kursiga kula wareegi doono saas ayaan mataqaanaa aan aniga rajayna marka barabaleen ima muuqdaan oo sida koonfur galbeed ama iska farayma ama khilaaf ma jiro guddiga hadda doorashooyin dowladda guddigii adiga markii la isku arbitration committee hadda cabdiweliyaa soo saaray waana looga hiray sida oo markii dambe ama isimada ha noqoto ama musharaxiinta ha noqoto arrintaas in la xeerinayo ayay u muuqata marka haddii guddigaasi oo marka xildhibaanadii lasoo saara kadibna waa hadda sanduuqana markaas waa sanduuq cad dhaladaas markii la tiriyo codkaasaa la raacaa aduu hoggaansama waana arrintii haddee lagu kala baxayo siyaasadda Soomaaliya maanta sanduuqaas cad ay ku socotaa qora caaraddiis waa ka baxay si fiican siyaasi ugu dambeyntii maxaa baaqa u adiraysaa runtii waxaan ugu baaqaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan ayna u diyaargaroobaan 2020 sidii ay qof iyo codkiis dalkan hoggaankooda ay u dooro lahaayeen argagixisadana shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ka hortagaan dawladdana ay gacan siiyaan ama ha noqoto dawladaha deegaanka ha noqoto ama midda dhexe ha noqotee inay naqdaan kuwo
ka hortaga argagixisada dalkooda ka sifeeya gacanna siiya dowlad goboleedyadooda iyo dowladda dhexe intaba runtiina ka dhiidhiya argagixisadu dhiigbaxa ay ku wado oo maanta labeenti Soomaaliya inay dilaan aan loogu dul qaadan taasaan shacabka ugu baaqaa dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay idinkoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyadda laydin saaray waxaa laydinka rabaa inaad argagixisada idinkoo shacabkiina iyo ciidamada qaranka kaashanaya iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba inaad ka sifaysaan 2019 argagixisada si dalkaani uu u noqdo meel nabdoon shacabka Soomaaliyeedna uu isugu socdo dowladda ayaan ugu baaqayaa beesha caalamkana waxaan leeyahay gacanha laga siiyo dowladda Soomaaliya argagixisada sida ay u ciribtiri lahayd saanad iyo hub hala siiyo diyaarado kor ka duqeeyana ha lagu saacido sida hadda la socoto iyadoo laga shidaal qaadanayo dowladda Soomaaliya marka gargaarka iyo waxyaabaha ay dowladdu u baahan tahay oo dhaqaalaha la xiriira ama diblomaasiyaddana dowladda Soomaaliya ha lagu gacan siiyo caalamkana waxaan uga mahad celinaynaa garab istaaga oo dowladda Soomaaliya garab istaagay waxaan leenahay marka dhaqaalo ay ku shaqayso dowladda ha laga gacan siiyaan leeyahay si ay ciidamadeeda ay u qorato ayna dalkeeda ugu filnaato amisoomna ay mataqaanaa ay ciidanka Soomaaliya ay ugu wareejiso amniga Soomaaliya sitaas ay soo degdegtana waxaan ugu baaqaa dowladaha awoodda oo dowladda Mareykanka ugu horeyso inay mataqaanaa dowladda Soomaaliya ay si lixaad loo garab istaago ayaan ugu baaqaa aad iyo aad ayaan mataqaanaa aan idinkaga mahad celinayaa fursaddan idinkana runtiina waxaan leeyahay guuleysta shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ilaahay kuwii ka samatama dhibaatadan dalkoodina dib u nooleysta Allah ka dhiga sidaasaan ugu duceeyaa aad iyo aadna mataqaanaa waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan tahay daawadayaal guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo inoogu marti ahaa siyaasi Salaad Cali Jaalle barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Mukhtaar Cabdi Aadan xagga kaamirada waxaa iga saacideeyay Cabdirashiid Sandheere iyo weliba Cabdullaahi Daacad intaynu barnaamijka xiisaha inuu dib ugu kulmi doono aqaaray sidaas iyo nabadgelyo